walaalayaal nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay qofka qof muslima dila ilaahay tabaaraka wa tacaala jannada urteeda waa ka xarimay nabigeena sallallahu alayhi wasallam qofka qof dila buu sheegay in salaad sunna iyo mid waajiba midna laga aqbalayn nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu sheegay qofka labada qof ee muslimka haday istilaan ka wax dila iyo kala dilaba inay naarta galayaan nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu sheegay dambi kasta inuu alla dhaafo marka laga reebo qof muslimo oo la dilo hadoo walaalkayga muslimkow ha ka qayb qaadan dhiiga walaalaha muslimiinta adoon ogeyn siyaalaha loo qayb qaato 5 qaybood ayaynu maanta insha Allah ka hadli doonaa qodobka koowaad waxa weeyaan qofku inuu maalkiisa yaani uu ka qayb qaato haday lacag noqoto haday shidaal noqoto haday rasaas noqoto haday xoolo nool noqoto qofka waxa la dhahaa gacan ku dhiig waxa la dhahaa maal ku dhiig la dhahaa ama isagu maalkan ha soo ururiyo ama isagu ha lahaade siyaalo loo qayb qaadan karo waxa qodobka labaad kamid ah qofku inuu afkiisa ka qayb qaato aalada uu ku qoro ku wacyi geliyo af Soomaaligan iyo xigmadan alla uu siiyay uu ku dhiiri geliyo kaana waxa la dhahaa af ku dhiig leh maxkamadda rabbina tabaaraka wa tacaala wa mid ku sugaysa ka saddexaadna waxa weeyaan fikirkiisa qofku inuu kaga qayb qaato fikir aqli wacyi gelin kaana waxa la dhahaa fikir ku dhiig la dhahaa uu ku faraxsan yahay uu ku faanaya joojin maynu leeyahay ilaahina tabaaraka wa tacaala waa ku arkaa waa ku maqlaa rabbina tabaaraka wa tacaala waa kula socdaa walaalayaal qodobka afraad waxa kamid ah qofku inuu qalinkiisa uu ka qayb qaato qoraalo qoro cod duubo uu ka qayb qaato miidiyaha uu ka qayb qaato qofkana waxa la dhahaa qalin ku dhiig leh xubintan aad ku qoreysina ilaahay horti adoo qaawan oo cagacad ayay kaaga marxaati ka casaa qofka qodobka shanaadna waxa weeyaan qofku inuu telefoonkiisa uu ka qayb qaato ama qoraalaha ahaato ama haduubo ama hasawiro allana tabaaraka wa tacaala waa ku jeeda kaana telefoonku dhiig la dhahaa maxkamadda iyo carshiga ilaahay tabaaraka wa tacaala qofkii halka markuu ku qabsado rabbi salni lima qatalani ilaahay oo weydii wixii ku dilay waxaad kaga jawaabi lahayd diyaarso maxaad ka faa'iiday waxaad ka faa'iiday ana ku sheegaya waxaad ka faa'iiday yaani agoonkii oo aakhira lagu weydiiyo kii yaani qaxay kii xanuunsaday kii haraaday kii dayacmay oo maxkamadda ilaahay horti lagu weydiiyay dumarkii carmalka noqday kuwii agoonta noqday kuwii rajada noqday ilaahay tabaaraka wa tacaala horti waa la weydiinayaa diyaarso waxaad kaga jawaabi lahayd waxaad dhigatay waad helaysaa ubadkaaga ooridaada adduunkaaga iyo aakhiradaadaba noloshaada iyo aayahaagaba يعني إلهنا تبارك وتعالى وكسين دونا الدونكنا والوسو ددجينيا آخرنا والوسينا يا صومالي وحكم مهما هذا لبن لسكغا دنبيا لبن ماها صومالي وحكم مهما هذا إلهي وها عذاب قفان وغين هدر واواتي إلهي تبارك وتعالى يعني ان كما ينقل ديغا مسلمين تينا كقيب قايتid qofka soo allana waa ku maqla waana ku arkaa ilaahay ugu tabceli walaalkiin oo markaas khayrkan la jecel sheekh ibraahim subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk insha Allah walaalaha kaliya gaarsiiya assalamu alaykum